jaamacadda badda cas ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka qabsoontay doorashada gudoomiyaha ardayda jaamacadda badda cas. doorashadan ayaa waxay ahayd mid qof iyo cod ah ayaa waxayna ku iimaaneysay nidaamka asxaabta badan iyadoo ay ardaydu u kala codeynayeen labada xisbi ee kala ah Kaahiye iyo Samawade. waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowladda Puntland ee gobolka Bari, dhammaan ardayda, maamulka jaamacadda, macallimiinta iyo musharaxiinta u kala tartamayay gudoomiyaha ururka jaamacadda oo ka kala socday xisbiyada kala ah Kaahiye iyo Samawade. Axmed Cabdullaahi Yuusuf oo ka socday Kaahiye iyo Siciid Maxamed Caseer oo ka socday Samawade. dhammaantood waxay goobta ka jeediyeen hadallo kooban. meeshaan waxa loo yimi waxay tahay waa la baratamay. waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahaa ururkii ka soo shaqeeyay in maanta aan isu doorano qaab axzaaba. waxaan ambalyo u dirayaa guddoonkii kan ka horeeyay mudane aadan oo runtii shaqo xoog la qabtay. waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa oo soo dhaweynayaa saaxiibka Axmed Wadani waan shaqo wadaag ahayn waan la shaqeynayaa inta aan inta leeyahay hawshan taariikhi ah aynu maanta gaarnay. waxaan jaamacadda uga mahadcelinayaa nidaamkan xisbiyada ay noo furtay. aniguna waxaa si gaar ah farxad igu ah xisbiga ugu horeeyay inaan noqdo guddoomiye ugu horeeyay xisbi ku soo baxay jaamacadda badda cas ka dhisan. waxaan rajaynayaa nidaamkan aan maanta wax ku dooranay inaynu gaarsiino jaamacadaha kale Boosaaso ku yaala, kuwa Puntland ku yaala iyo kuwa Soomaaliya ku yaala. intaa ka bacdi waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahadcelinayaa walaalkay Caseer. waxaan leeyahay gari laba nin kama wada qasbiso, guushaadu waa guusheedii, guusheeduna waa guushaadii. intaa ka bacdi alla ka sokow halkan inaa imaado waxaa ii suurto geliyey xisbiga Kaahiye ee aan ka soo baxay. waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa xubin walba oo ka mid ah xisbiga Kaahiye. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha xisbiga Kaahiye Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi. inaad ku dhiirataan oo tiraahdaan gudoomiyaha intii gacantaag loogu codayn lahaa sida doorashooyinka dadban, doorasho toos ah oo la arko oo transparency ah. halkaas nin kasti waxa weeye tabar hayo ardadaas ninkii codkiisa iyo waxqabadkiisa ku qanciya waxa weeye santuuqa lagu kala baxaya. sharaf bay ii tahay, idinkana idin tahay, jaamacadana waa idinka mahadcelinaya. jaamacadda dhanka warqadda codaynta waa warqad shaabadaysan waaye oo lagu kalsoonaan karaayo, lama fikirayn karaayo. arday kale warqadda aan guddiga doorashada uusan bixin kuma codayn doono. ha iska hubiyo ardaygu inay dhabar ka shaabadaysan tahay, nadiif tahay, wax kale aysan ku qornayn. maanta waa maalin taariikhi ah oo rajaynayno inay ardada jaamacadda Rirsi ay qoraan page cusub oo jaamacadda iyo ardada sumcadeedaba kor u qaadi doonaan insha Allah. waxaan ku faraxsanahay inaan maantay halkan soo istaago anigoo maalin ka hor halkan loogu doortay oo ahaa gudoomiyaha ururka ardayda, haddana noqday ex gudoomiye. farxad bay noo wada tahay inaan maantay dooranno gudoomiyaha ururka ardayda jaamacadda badda cas. waxaan hambalyanayaa bogaadinayaana gudoomiyaha cusub ee ururka ardayda jaamacadda badda cas Axmed Cabdullaahi Yuusuf. runtii waxaan leeyahay Axmed waan ku faraxsanahay guushaada. waxa tahay xumin wuxuu ahaa Axmed iyo Caseer laba arday waxay ahaayeen aniga golahayga dhexe ururka ardayda ka tirsan. markii ay soo gabagabowday codeynta doorashada ayaa waxaa lagu dhawaaqay natiijada doorashada waxaana ku guuleystay Axmed Cabdullaahi Yuusuf oo ka socday xisbiga Kaahiye. waxay kale natiijada ay kala heleen waa sida soo socota. Siciid Maxamed Caseer Samawade wuxuu helay 203 cod. Siciid Maxamed Caseer wuxuu helay 203 cod ayuu helay. Axmed Cabdullaahi Yuusuf Kaahiye wuxuu helay 244 cod. waxaa khasaartay
waxaa khasaartay 20 cod cabdiweli maxamed barre sahal cable tv kusoo dhow macmil adeega e-bank ee bangiga salaam kaasoo lagu sameeyay dib u habeyn iyo casriyeyn ugu horeyn soo gal website-ka salaam bank oo ah salambank.net geli userkaaga iyo passwordkiisa waxa ku soo baxaya qaybaha uu ka kooban yahay e-banking oo kala ah qaybta akoomada accounts kaasoo loogu talagalay in macaamiishu kala socon karaan dhaqdhaqaaqa akoomadooda bangiga salaam sidoo kale waxa arkaysaa qaybta mushahar bixinta payroll oo u sahlaya xarumaha ganacsiga iyo jooga goobahooda shaqada inay shaqaalahooda u dirsan karaan lacagaha mushaharaadka si fudud sidoo kale waxa uu leeyahay payroll report oo ah report ku sahlaya in dhammaan dhaqdhaqaaqa mushahar diridda aad dirtay aad ka heli kartid isla markaana aad daabacan kartid sidoo kale waxa arkaysaa ama uu leeyahay e-bank qaybta jadwalka maalgelinta investment schedule oo ah qaybta macmiilku uu kala socon karo haddii uu ka qaatay maalgelin bangiga salaam maalgelintiisa iyo inta u harsan dayn bixintiisa